gudoomiye maalintii shalay jaamacadda magaalada Burco oo gudoomiye ka tahay waxa ka qalin jibiyay 110 arday ilaa intii aanu jaamacadda soo galay ardaydu way gurxamayeen qalin jibinteeda madaxweyne Muuiman naga duuba madaxweyne muxuu iman waay jaamacadii kale u tagay arrimo noocaas bay ku hadlayeen arrintii ardaydii dareenkoodii waanu qaadnay anaguna waanu baahinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland habeennimadii xalay buu soo saaray war-saxaafadeedkaas oo u dhignaa in aan lagu marti qaadin jaamacadda Burco mas'uuliyadaas oo dhanna ay dhakada ka saaran tahay mas'uuliyiinta jaamacadda arrinta maxaad kaga jawaabaysaa arrinta madaxweynaha uu afayeen ku soo xigtay waxa weeye runtii waa dhab weeye madaxweynaha lagu macsuumin waana ka raali gelinaynaa madaxweynaha in lagu eedeeyo inaanu iman munaasabadii qalin jabinta arrintuna waxay ahayd hadii goorda channel baa la soo mara annaku toos yani line ministeriga waa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ama sayniska waxa weeye horta qoladaas aanu wargelinay qoladiina de way yimaadeen cidii karaysa way yimaadeen isna waxa nala joogay agaasimihii guud ee madaxtooyada oo si wanaagsan noola qayb galay waxa moodaysay marka afayeenku uu akhriyay qoraalka xoogaa in ma garanaysa uu kala saarayay yani agaasimaha guud ee munaasabadii soo sharifay ka soo qayb galay iyo shaqadii uu socday yani bariga inuu kala tilmaamayay marka qof mas'uul oo qaran uu hawl u soo baxo hawl kalena la kulmo waxa weeye horta taasi waa taa mid kale madaxweynayaasha loogama baran madaxweyne Muuse ka horeeyay loogama baran inay يعني كسر قيب قالن أنت حسوسنا هاي هل مدحوين أحمد سيلان يوقع قيب قلي إيو مدحوين كحجانكم مروا قيب قلي بع ولي جامعة عدا مدح قرنكم يعني وحكا قيب قلي أي شيء وزير رد وين شيء وزير رد مركا ده وزير رد عدي كوكيل كهيدنا ويتيمي مناسبتنا مسارة مراق روح بدن بيا هيد مدحوين هنا ورنتي سوتو سجمان نعسومين إن وحكا للقصة ميانا ماشوا معها وحنوق هذا هي إن ملها أرددوا آد وتشعليهين وحيسينيين مدحوينهودو إنو تشوجو أرددونا إن النورجلي سباي حيد ودي النويدي سوحه إن ميديهن أي سكر حدا يعضو معها. إن قدومي واحد قدومي سامع دبرو. إن مش هو أتكسبني ودريمس إن كل بدي أرددي مش مركز شوكتو قرحن كودو بحي يقدومي مدحوينه ما إن إلا هبنكي السوشيال ميديا هي فيسبوك اللي يعني مدحوين محوي مواي مدحوين حقوق شري مدحوين شعادم حنو قال سقيب قالوا أرمها هذا شعيني إن مياني حبونين ما دام قدوميه كام عدد هاي مركي الستيج كهل لسي إن الأرضية وشيكتو إن مدحوين هلا ورجلين إن oo aanan anagu soo macsuubin madaxweynaha oo ardayda halka ka raali geliso arinta halka uga sheegto samiyaan wasiirkaaga waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada markii hore adigu laftaadu markaad agaasimahan guud u imanay wasiirka waxbarashada aanad gaarsiinin oo aanad ku oranin munaasabada ay la soo qayb galaan jaamacadda qalin jibinta وهذا الوناسة horta madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka ummadda aad aragtay 5 milyan ayuu madaxweyne u yahay waxa weeye masaafada ay jirtaana waad garan kartaa ويمكن هرجيسة إيه عمود آدي أدب وجدوا يهين مركح حوشة أنك صانو قادن لو حوي يدي هرت مدحوينها توس حليل أنك توس ومليهين يدو اللي قفر سموها يمويه أنك وحنو مرة وزارة وحبرشة إيه ساينسكا جارهان توس وحنو مرة أجازين كتعلين تسرى إيه كوميشنكا لبدو دبنا وورجرين وحوي مركا مدو حبونته madaxweynuhu haduu doonayo toos in loo soo xidho mara waxa ka haboon wasaaradda tan isku bashiishatay primary iyo secondary iyo ilaa tacliintii sare ay isdhex yaacayso mala waxa haboon anana noo fududaan lahaa in gooni laga dhigo tacliinta sare si access ku bato laakiin madaxweynaha annaku toos xidhiidh uma leeyin waxaanu la xiriirnaa waa wasaaradda waxbarashada iyo barbaarin wasaaradda ay u sheegto annaku u sheegnado warka gelinay waxana toos loola xiriiraa waxa weeye waa agaasinka tacliinta sare waxa leedahay ariga iclaankaas annagu naga baxayo waa kan agaasimihii guudbada noo yimi agaasimihii guud tacliinta sare noomu iman agaasimihii guud ee kale ee tacliinta qolada National Commission for Higher Education kana waanu wargelino way ka cudur daarteen marka sabab aanu madaxweynaha access toosaba lama leehinaano waxyaalo badan oo baa jira imanka annaka noo taagan oo madaxweynuhu laga yaabo inuu ka warhayo laakiin wasaaraddu aanay u gudbin marka waxaanu doonaynaa runtii inaanu annaka oo
annaka iyo guddida jaamacadda oo isu dhamme maamulka iyo jaamacadda oo isu dhan inaanu madaxweynaha ballan dambe aanu la qaadanno waxyaalaha iyaga aanu wada sheeganno laakiin waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee ku shaqale waanu wargelinay iyagayna shaqadooda tahay ciday de wargelinayaan madaxweynaha iyo ardaydana sidaa aan mar labaad u soo qaaday xiisuun bay u hayaan waxay arkeen madaxweynuhu booramiyo tagay iyo hargeysa dabadeedna waxay leeyihiin why not annakana somaad garan marka wax weeye madaxweynuhu wax aadana kuma leh inuu ka soo qayb gali waayo waana ka raali gelinaynaa laakiin saxaafadda sida loo dhigay ee afayeenkaasi u hadlay arrimo brotokoolka aan ku hagaagsanayn ayaa ku jiray agaasimihii guud ee madaxtooyada oo jooga ayaa sida loo tilmaamayay ilaa ma aha in sidaa ma garanaysa marinta madaxweynuhu u dhigay ugu dambeyntii ardaydaadi jaamacadda ee qalin jabisay iyo guud ahaan bulshada gobolka Togdheer oo iyaga arrintaasi ay wada gaadhay oo arrintaasi wada saamaysay iyo bulshada Soomaaliland adigoo gudoomiye jaamacadda Burco maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa horta waxa ugu horeeya ee bani aadamku wax ku yahay waa kalsoonida kow qodobka labaad waxa weeye waa in nidaam iyo hab la isu maro waxaan arkaa marmarka qaarkood oday ama islaan ka baaqaysa ceelaayo ama laasqore oo la madaxweyne sidaa noo yeel ceelkaasaan u baahnay madaxweyne noo fule dee annaka dhaqanka jaamacadu saamaa annaku jaranjaraannu maraa jaranjaradaasaan maraynaa waannu isnaqaanaa madaxweyne somaad garan ixtiraam baanu isu haynaa waxa weeye sabab aanu ma garanaysaa marka dee toos isaga ugu tagnaa ma jirto waxaan leenahay hal la istajiyo yaan wax la siyaasadayn yacni jaamacaddu waxa weeye ardaduna hadday xitaa miidiyaha dee ninkii la dhex maray waa adiga inaad ma garanaysaa dee naga talageliysaan si aanu ma garanaysaa u jeedno laakiin madaxweynuhu wax allaaliya wax eeda oo uu ku leeyahay ma jirto Ibrahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco.